السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. aad baa idin salaamay dhammaantiin asxaabta sharafta leh soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba channelka daawanaysaan waa Sunrise 626 fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka soo dhawow muuqaalada aan soo dhigno haddii aad daneynaysid inaad wax badan ka faa'iido fadlan subscribe saara channelka gambaleel kerka ana ku dhufo si fariin ahaan ay kugu soo gaarto mar walba aan muuqaal soo gelino haddii aan u gudbo mawduuca maanta wuxuu ku saabsan yahay sida website-kaada u soo gelin kartid link qoraal oo link aad ka dhigtay oo markii lagu dhufto ku geenayo page kale ama sawir ahaan oo markii sawirkaas lagu dhufto ku geenayo page kale muuqaal baa ka horeeyay oo aan uga hadlayay HTML iyo CSS cashirka koobaad dabcan wuxuu noqon doonaa cashir joogto ah oo socda cashirka koobaad waan soo dhigay cashirka labaadna midkan waay fadlan haddii aad rabto inaad fahamtid cashirkan labaad soo daawo cashirka koobaad linkigiisa ayaan soo gelin doonaa descriptionka hoose ayaad ka arki doontaa linkigaas oo cashirka koobaad ah kaas ku dhufo soo daawo markii aad kaas wax badan ka soo fahantid ayaad kana fahmi doontaa insha Allah ama sida website loo sameeyo haddii aad xiiseynaysid fadlan nala soco waa fursad qaali ah waa bilaash wax lacag lagama rabo si bilaash ayaad ku baranaysaa waxaan diyaar u ahay mar walba inaan walaalahayga muslimiinta ah meel kasta ay joogaan mar walba aan caawiyo inta yarto aan qaanana aan la wadaago wuxuu ku saabsan yahay mawduuca maanta link sida loo soo geliyo website-kaaga waan u guda gali doonaa marka hore waxaan ka bilaabayaa waxaan tagayaa meeshii aan ku qori lahaa codekayga aan ku qoran lahaa ama editorka hadda isticmaalayo wuxuu yahay Sublime Text ayaan isticmaalaa okay waxaan u guda galayaa cashirkii ayaan u guda galayaa marka ugu horeyso file ayaan furayaa waxaan leeyahay file new file ayaan dooranayaa marka new file aan doorto waan save gareynayaa markii aan save gareeyo waxaan leeyahay save as folderka aan ku save gareynayo ama meesha aan rabo inaan ku save gareeyo ayaan tagayaa UI technology folderkaas ayaan rabaa inaan ku save gareeyo magaciisa waxaan ka dhigaynaa casharkii labaad dot extension ayaa la raacinaa waa idin sheegay extensionkaasna wuxuu yahay .html kadib markaan save gareeyo meesheeda ayuu igu soo celinayaa editorkayga ayaan joogaa hadda waxaan diyaar u ahay inaan bilaabo codekayga marka ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa HTML ayaan qorayaa saan hore in kugu sheegay HTML tag ayuu ka bilowdaa HTML tagna wuu ku dhamaadaa doc typekaas wuxuu cadeynayaa inaad isticmaalaysid waxay tahay HTML5 versionka ugu dambeeyay oo HTML-ka la isticmaala hadda waa HTML5 CSS-kana sidoo kale asagana waa CSS3 waxaas oo dhan waxaan ku soo sharaxay cashirkii hore fadlan cashirkii hore dib u daawo si aad u fahantid oo aadan ugu wareerin waxa hadda aan sharaxayo okay title-ka waxaan ka dhiganaynaa sida loo soo geliyo link page-kaaga ama website-kaaga ama page-kaaga okay waxaan sameynayaa marka waxaan imaanayaa body tag ayaan imaanayaa body tag markii aan imaado waxaan qorayaa ayaan qoraa si fiican ay faantaan isku daya eedan waxay ka socotaa anka tag waxa la dhaho tag aan isticmaalayo markii aan rabo link inaan soo geliyo page-kayga ama meel walba link inaan soo geliyo aan rabo oo HTML waxaan isticmaalayaa tag ama anka tag waa wadada aad u isticmaalaysid inaad link aad soo gelisid page-kaaga sida hadda aragtaan waxaa la socdo oo dheeraad ah href waxa waaye waa attribute wuxuu cadeynayaa linkiga destinationkiisa ama linkiga meesha aad u socotid ayuu ku cadeynayaa sababtoo marka link aad inaad ku dhufatid linkigaas meel buu ku geenayaa meesha uu ku geenayay ayaad soo gelinaysaa meeshan linkiga meesha aad inuu ku geeyo ayaad soo gelinaysaa okay linki baan rabaa hadda inaan soo geliyo waxaan soo qaadanaa browserkan tagayaa waxaan isaga qoranayaa Google ayaan ku qorayaa Google markii aan ku qoro URL-kiisaan soo qaadayaa markii URL-kiisa aan soo copy gareysto waxaan imaanayaa halkii meesha aan hrefka aan imaanayaa waxaan dhex gelinayaa linkigan soo qaada tag editor-kaaga hadduusan soo qabanaynin tag-ga simply si caadi ah u qori kartaa tag ayaa qoraysaa
marka kalena waxaa leedahay href ayaa leedahay is equals to ayaa leedahay waxaa furaysaa quotation ayaa furaysaa double quotation waa ka soconaysaa waa xiraysaa kadibna tagga ayaa xiraysaa okay waxaad soo gelinaysaa marka linkiga ayaad soo gelinaysaa linkiga markii aad soo gelisid linkiga uu ku soo galay meeshan qoraal baad ku qoraysaa soo qofku u arko aad leedahay visit Google waan save gareynayaa control s ayaan ku save gareyn karaa shortkaada haddii kalena save ayaan leeyahay intaan meeshaas ku dhufto okay markaan save aan dhaho waxaan rabaa inaan soo kiciyo laba qaab ayaan u soo kicin karaa inaan faylka aan tago meeshu ii yaalay aan faylka soo qaado asaga dhan aan soo jiido drag and drop inaan sameeyo oo soo jiido halkaas aan keeno ama inaan dhaho meesha anoo joogo editorkayga anigoo joogo aan right click intaan dhaho aan dhaho open in browser labada wuu igu furi karaa wakaasa markiiba linkiga markii aan soo geliyay saas ay u soo muuqday visit Google oo buluug ah oo hoos ka xariiqan markii mouse-ka aan dulgeeyo gacan yar ay isu bedelaysaa waa ujeedaan waan ku dhufanayaa linkigaas markii linkigaas aan ku dhuftana wuxuu toos ii geenayaa Google ayuu toos ii geenayaa okay talaabadaas kooda isla fahanay waxaan rabaa marka intaan u gudbin sawirkan aan u gudbin qoraalkan waxaan rabaa sida hadda u jeedaan wuxuu iska dhigay markii buluug ayuu noqday xariiqad hoos ayuu iska xariiqay aniga wax aan geliyay oo property ah ama CSS property aan geliyay male asaga unba iskiisa u samaystay waxa la yiraahdaa taasoo kale default property ayaa la yiraahdaa wax walba shay walba waxay leeyihiin default property ay leeyihiin default property-giisa markii inaan bedelaan rabaa waxaan ku bedeli karaa style ayaan furanayaa style tag CSS ayaan soo gelinayaa meeshan CSS-ka external waa ka dhigan kartaa internal waa ka dhigan kartaa inline waa ka dhigan kartaa taas cashirka hore ayaan ku sharaxay waa fahmi kartaa okay hadda waxaan isticmaalnaa internal CSS style tag ayaan furtay style tag dhexdiisa ayaa waxaan gelinayaa a tag ayaan qorayaa link ayaan qorayaa brace ayaan furayaa markii brace aan fur dhexdiisa ayaa waxaan ku qorayaa farta cabirkeeda inaan weyneeyaan rabaa font size ayaan leeyahay waxaan ka dhigayaa 30 pixel ayaan ka dhigayaa waxaan rabaa inaan ka bedelo linkiga ayaan gelinayaa meeshaas linkigaan tagaynaa inuu isbedelay ayaan fiirinaynaa oo kaas refresh ayaan eri markiiba wuu isbedelay okay waxaan rabaa markii linkiga sidaas ayuu u muuqanayaa waxaan rabaa marka haddana a tag ayaan leeyahay waxaan rabaa markii aan dulgeeyo mouse-ka inuu isbedelo haddana hover ayaan leeyahay hover markii aan dhaho kadibna isla brace ayaan furayaa markii brace aan furana waxaan ku qorayaa colorka inuu isu bedelaan rabaa red text decoration ayaan u sameynayaa underline inuu hoos ka xariiqmo ayaan rabaa okay waan save gareynayaa markiiba browserka ayaan tagayaa refresh ayaan leeyahay markaan dulgeeyo markiiba wuxuu isbedelaa linkiga red ayuu isbedelaa markaan mouse-ka aan dulgeeyo hoosna wuu ka xariiqmayaa okay haddii aan rabo linkiga marka hore waxaan ka qaaday text decoration-ka ayaan ka qaadaa si hoverka bas uu noqdo underline text decoration none ayaan leeyahay markii aragtina text decoration-ka aad ka bedeshid oo waxba decoration aadan ku sameynin ama wax sharaxaada waxa none ayaa leedahay markii aan dul keeno ayuu noqonayaa red hoosna ka xariiqan okay waxaan ku dareynaa marka waxaan kaloo raacinayaa a tag ayaan leeyahay waxaan kaloo raacinayaa active markii aan raaciyo waxaan rabaa markii mouse-ka aan click ku siiyo inuu isbedelo colorkiisa markii click aan ku siiyo waxaan rabaa inuu noqdo yellow ayaan ka dhiganayaa background colorna blue okay waan save gareynaa markiiba waan imaanayaa page-ka refresh ayaan leeyahay markii aan dul keeno waa aragtaa waa red hoos ka xariiqan markii aan click siiyo waa yellow farti background-kiisana waa blue okay markii tan intaan ku adkeynana linkiga in property-giisa sidaan ku bedeli kartaa waxaan kaloo sameynaynaa marka waxaan raacinaynaa hadduu ilaa ku ron yahay waxaan raacinaynaa information oo extra information aan raacinaynaa sida waxaa jira wax la dhaho
isla a tag dhexdiisa linkiga meesha ku jira markii href aad qortid linkiga aad soo gelisid waxaa u sameynaysaa title wuxuu kaa caawinaa qoraal yar ayuu kugu soo qoraa markii mouse aad dul saartid ayuu kugu soo qorayaa waa ila arkaysan title ayaan u qorayaa ku soo dhawow page kanaga waan save gareynayaa waxaan ku laabanayaa browserka refresh ayaan leeyahay markii mouse aan dul geeyo markiiba wuxuu soo qorayaa ku soo dhawow page kanaga qoraalkaas cad oo u jeedaan markii mouse aan dul geeyo ku soo dhawow page kanaga ayuu meesha ku soo qorayaa waxaan rabaa marka linkiga markii aan click aan ku dhufto waxaa jiro target attribute waxa la jiro target attribute ka wuxuu ka caawinayaa meesha uu ku furmaayay meesha uu ku furmi lahaa linkigaas lagu dhuftay meesha uu ku furmi lahaa wuxuu ku furmi karaa window cusub ama tab cusub ama page cusub buu ku furi ama isla page-ka asaga gudihiisa ayaad ku furan kartaa waxa leedahay marka target ayaa leedahay target markii aad dhahdid waxa raacinaysaa meesha aad rabtid hadii waxa leedahay underscore ayaa leedahay underscore waxa ku sameyn kartaa shift ayaa qabanaysaa calaamada minuska ayaad ku dhufanaysaa underscore ayaa isu bedelaysaa blank ayaan leeyahay blank markii aan dhaho blank markiiba page cusub ama window cusub ayuu ku furmayaa save ayaan eri reload dhig markii aan siiyo markiiba tab cusub ayuu ii furay oo ujeedaan waa kana tab cusub ayuu ii furay okay tabka cusub ka soo noqo hadii aan rabo isla gudaha inuu igu furo waxaan leeyahay top ayaan leeyahay top waka isla tabka asaga ahaa ama page-ka asaga aan ku dhex jiray gudihiisa ayuu igu dhex furay okay taas waa isla fahnay title-ka iyo target-ka labadaba waa attribute wax kale ma ahan cashirka hore noo sharaxay waxay ku siinayaan akhbaar dheeraad ah oo ku saabsan waxa isticmaalaysid hadii aan u gudbo marka tan waa qoraal sawir baan rabaa inaan link ahaan u soo geliyo oo sawirkaas marka lagu dhufto uu noqdo link uu noqdo oo meel uu ku geeyo okay waxaan soo qorayaa tan waan iska tirtirayaa page kan dhan waan iska tirtirayaa select ayaan leeyahay waan iska tirtirayaa html cusub hadana soo bilaabanayaa kana waxay ku saabsan yahay sida sawir link looga dhigo okay marka waxa imaanaysa marka body tag ayaa imaanaysa waa hore idin kugu sheegay tag isticmaalaysid marka aad link ina soo gelisay arabtid waa a tag ama anka tag ayaa laga soo gaabiyay a tag markii si automatic wuxuu soo gelinayaa attribute oo href ah hrefna wuxuu ka caawinayaa meeshii aad u waday linkigan aad rabtay inuu qofku u geeyo address destination-ka okay waxaan soo qaadaa marka isla a tag dhexdiisa marka waxaan ku furayaa img waa tag sawirka lagu soo geliyo page-ka inaad sawir soo geliso markii aad rabtid waxa isticmaalaysaa img tag waxay wadataa markiiba src ayadana waa attribute kale file-kan meesha uu ka imaaday ama source-ka ayay ku sheegaysaa okay marka waxaan sameynaynaa image-kan waa soo gelinaynaa linkiga aan rabno inaan qofka geynana waa soo gelinaynaa marka hore sawirka ayaan ku bilaabaynaa sawirkan ayaan soo qaadanaa waxaan leeyahay copy waxaan soo gelinayaa image-kayga waa ii soo galay meeshaas waxaa ii haray linkiga ayaa ii haray linkiga waxaan rabaa markii sawirkaas lagu dhufto inuu Facebook hore ka geeyo markiiba Facebook page ayaan furaynaa URL-kiisa ayaan soo qaadanaynaa copy ayaan leeyahay copy markii aan dhaho linkiga ayaan paste ku leeyahay okay bal waa arkaynaa sida ay noqoto hadaa rabtid waxa ku dari kartaa image-ka waa control kartaa balaciisa iyo dhererkiisa width ayaa leedahay 100 pixel ka bax space hadana height-kiisa 100 pixel ka dhig hadana sida hadaan kugu sheegay linkiga waa ku dari kartaa target iyo title target ayaan ku darayaa target-kaas oo ah blank inuu igu furo markiiba window cusub waxaan ku dari karaa title ayaan ku furayaa aan leeyahay ku soo dhawow Facebook okay
image-kina waxaan raaciyay attribute, laba attribute ayaan raaciyay oo ah ballaca iyo dhererka. Ballaca iyo dhererka. Okay, save ayaan leeyahay. Markaan save aan dhaho page-kayga ayaan kusoo laabanayaa. Refresh ayaan leeyahay. Sawirkii markiiba wuu soo gelayaa. Markii aan falaarta aan dul geeyo markiiba gacan yar ayay isu bedelaysaa. Qoraalkiina oo yarka ahaa title-ka yarka ahaana meeshuu kusoo qormayaa ah kusoo dhawow Facebook. Markii aan click aan siiyo ku dhufto markiiba window cusub ayuu wuxuu iigu furay Facebook. taasna waa sidaas ayaad u samayn kartaa sawir aad uga dhigi kartaa link. Sawirka control kartaa, balaciisa waa weynayn kartaa, height-kiisna waa weynayn kartaa. Sawirkan ma ku dari karnaa wax CSS ah ama wax qurxina ma ku dari karnaa. waxaan ku daraynaa style tag ifur. Style tag markii aad ifurtid image img tagga ayaad soo qaadanaysaa. property kale aan u yeelaynaa, waxaan leenahay hover. markii mouse aan dul geeyo sidoo raba inuu noqdo widthkiisa inuu bataan rabaa. mouse markii aan dul geeyo widthkiisa ama ballaciisa inuu 200 uu isu bedelaan rabaa. waan save gareeyay. waxaan kusoo laabanayaa page-keygii. refresh ayaan leeyahay. markii mouse aan dul geeyo markiiba wuu isbedelayaa, ballac wuu isbedelayaa. mouse baan dul geeyay wuu isbedelay ballac. waa sii weynayn kartaa haddii aad 300 haddii aad ka dhigtid waa arki kartaa. save garee. just waxaa imaadaa browserka imow refresh dheh. refresh halkaas waa ka dhigi kartaa. haddii kale waxaa leedahay control R ayaad laaban kartaa. markiiba Facebook image-kii markiiba wuu weynaanayaa, wuu isbedelayaa markiiba. taas waa CSS property. waxaan aan isticmaalayo hover-ka, active-ka, link, sidoo kale waxyaabahaas oo dhan waxaa la isku dhahaa pseudo class ayaa la isku yiraahdaa. waxay ka caawinayaan shayga markii xaaladda uu ku sugan yahay markaas ayada ah ayay ku xukminayaan. xaaladda hadda page-kan hadda sawirkan hadda waxaan ka dhigay width-ka 300 aan ka dhigay. markii aan tago page-kayga oo aan ku laabto isma bedelin. width-ka 300 ma arki kartid ilaa aan sawirka aan dul tago. markaan sawirka aan dul tago kaliya ayaa arki kartaa isbedelka. marka taas waxaa la yiraahdaa pseudo class ayaa la yiraahdaa. classyo badan baa jiro, kale casharada dambe ayaan ku sharxi doonaa. marka hadda hoverkaas ayaan ka dhiganayna. sida sawir looga dhigo link iyo sida qoraal link looga dhigo. sidoo kale tagid ayaa jiro. tagidka oo ah meesha uu kugu furmayo linkigaaga. waxaad ku furan kartaa window cusub ama isla page-ka asaga hadda isticmaalaysid ayaa ku dhex furan kartaa. title ayaa u samaysan kartaa oo markii mouse aad dulgeyso qoraalka uu soo qorayo. intaasaan kusii joojinayaa. fadlan haddii aad rabtid casharkan aad fahantid, casharka koobaad soo daawo introduction-ki iyo wax badan oo ku saabsan hadda casharkan aan sharaxayo. waxyaalo badan oo ku saabsan oo ku arkaysid ayaan kusoo sharaxay casharka hore. casharka hore inaad soo daawato waa lagama maarmaan mar walba. casharka hore soo daawo si aad u fahantid midkan. haddii aad rabtid inaad gacantaada ku samaysid website adiga aad leedahay mise website dad kale ay leeyihiin oo aad maadadan aad si fiican aad u fahantid oo aad u baratid, waad nagu soo beeri kartaa. mar walba soo dhaweyn ayaan diyaar u nahay. Sarnay 626 mar walba waxay diyaar u yihiin inay mar walba ay baahidiina ay xaqabtiraan ama wax walba ajeceshin ay ka shaqeeyaan. waxaa muhiim ah mar walba taageeranimadiina. fadlan haddii aad channelka ku cusubtahay iyo haddaa horey u joogtay oo subscribe oo kusan kuu saarneen, subscribe saara channelka si mar walba aad u aragtid muuqaaladan soo dhigno inaad wax ka faa'iidaa laga yaaba. maadadan haddii aad rabtid inaad ka meel gaartid, fadlan casharada sida tooska u socda ka faa'iideyso. casharka koowaad waan soo dhigay kol hore, casharka labaadna waa kana, casharka saddexaad, kan afraad iyo kan shanaad iyo dhammaanba inta dhimanba insha allahu tacaala waa soo gelin doonaa. wixii fikir fariin ah talo iyo tusaale ana commentiga hoose noogu reeb. muuqaalkan haddii uu ku anfacay ama aad ka heshayna like saar. haddii uu jiro saaxiib danaynayo barashada sida website loo sameeyo, share garee si uu uga faa'iideysto asagana. aad baa idin soo dhaweynaynaa. haddii aad rabtid wax caawinaad ah si qaas inaan kugu caawiyo oo aan kaa caawiyo sida website loo sameeyo, description-ka ayaan soo dhigi doonaa contactigayga, Facebook-ga, page-ka, lambarkayga WhatsApp-ka iyo sidoo kale email-ka. intaasba waa igala soo xiriiri kartaa haddii aad u baahan tahay wax caawimaad ah. fadlan nala soco. casharka saddexaad ayaa inoo balan ah.
wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.